kusoo dhawaada warbixinteena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa 10 ciyaaryahan ee ugu goolasha badan kubadda cagta haatan ayaan kusoo qaadan doonaa maanta warbixinteena haddii aan u guda galno kaalinta koowaad waxaa ku jiro xidiga lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo dhaliyay 815 gool kaalinta labaad waxaa ku jiro Lionel Messi oo dhaliyay 769 gool kaalinta saddexaad waxaa ku jiro Lewandowski oo dhaliyay 601 gool kaalinta afaraad waxaa ku jiro Ibrahimovic oo dhaliyay 571 gool kaalinta shanaad waxaa ku jiro Luis Suarez oo dhaliyay 521 gool kaalinta lixaad waxaa ku jiro David Villa oo dhaliyay 431 gool kaalinta toddobaad waxaa ku jiro Cavani oo dhaliyay 430 gool kaalinta sideedaad waxaa ku jiro Sergio Aguero oo dhaliyay 429 gool kaalinta sagaalaad waxaa ku jiro Karim Benzema oo dhaliyay 426 gool kaalinta tobanaad ee ugu dambaysa waxaa ku jiro Samuel Eto'o oo dhaliyay 424 gool fadlan hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena xulka ciyaaraha dunida fadlan subscribe inoo saar dambaleynkana furo si ay kugu soo dhacaan wararka ciyaaraha aan soo gelino maalin walba